Soo dhawaada asxaabay ku soo dhawaada Somali Scholars University. Maanta waxaan qaadanaynaa horudhac ku saabsan maamulka ganacsiga. Haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato YouTube-kayga, subscribe saar, videogana like saar, ina keen marka. Sidaan horey idinkugu sheegay, waxaan horudhac ahaan hadda u qaadanaynaa maamulka ganacsiga oo aan rabno inaan course aan ka diyaarino. Marka introduction-kii ayaan hadda qaadanaynaa. Business Administration, maamulka ganacsiga waa mid ka mid ah koorsooyinka ugu faa'iidada badan ee maanta. Laakiin si aad progress ayaa la dhahaa horumarka u samayso, waa inaad si nidaamsan u wajahdaa. Aan si toos kuu siiyo dariiq cad oo aad u horumari karto. Fahamka asaaska. Marka hore, hubi inaad si fiican u fahamtay qaybaha muhiimka ah. Maamulka ganacsiga, maamulka management, suuqgeynta, marketing, maaliyadda, finance, xisaabaadka, accounting, HR oo laga soo gaabiyey human resources, soo saarka bani'aadamka. Haddii asaaskaagu xoogan yahay, waxaad si fudud u baran kartaa wax kasta oo ka dambeeya. Dooro specialization, wax adiga ku gaar ah. Business Administration, maamulka ganacsiga waa ballaaran yahay. Marka dooro hal meel aad ku xooga saarto, ka dooro Business Administration, maamulka ganacsiga. Marketingka, haddii aad jeceshahay iibinta alaabaha digitalka ah iyo social media, inaad gasho oo social media aad ganacsiga ku soo bandhigto rabto, waa niche ku gaar ah. Marka wax specializationka leeyahay waa sidaas.